Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Biraha ilkaha lagu xidho waa aalad loo adeegsado in lagu toosiyo ilkaha. Afka qalaad waxaa lagu dhahaa dental brace. Waxaa birahani adeegsigooda lagu tiriyaa inay ka mid tahay qaababka kala duwan ilkaha lagu dabiibo. Orthodontics waa cilmi si gaar ah loo barto lehna dhakhaatiir gaar ah. Waxaa diiradda lagu saarayaa habka biraha ilkaha loogu xidho iyo dadka loo xidho. Dhakhaatiirta aqoontani baratay waxaa afka qalaad lagu dhahaa orthodontist. Cillado badan ayaa ka dhalan kara haddii qaab xidhista wax ay ka qaldamaan. Sidaa awgeed, muhiimad ayay leedahay qofka xidhayo inuu noqdo dhakhtar aqoon buuxda u leh. Sidee lagu ogaan karaa qofku inuu u baahan yahay ilka xidhis? Sannadda 1998 cilmi baaris la sameeyey ayaa lagu tilmaamay dadka u baahan biraha ilkaha lagu xidho inay ka badan yihiin dadkaan u baahnayn. Waayo boqolkiiba 35 ayaa noqday dad ilkahooda isku toosan oo hagaagsan. Waxaa jira calaamado kaloo ku bidhaamin kara in loo baahan yahay ilka xidhis. Waxaa ka mid ah ilkaha oo kala dheeraada mise kala fogfogaada, inay qofka ku adkaadaan ereyada qaar ku dhawaaqidooda, in lagu daalo calaalinta mise chewing-ka cunnada. Dhakhtarka ilkaha guud markaad la kulanto ayaad ka ogaan kartaa wax walba. Haddii ay dhacdo inaad ilka xidhis u baahan tahay, dhakhtarkaaga ayaa kuu diri doona dhakhtarka kale farsamadaasi ku xeel dheer oo aan ugu jeedo orthodontist. Biraha ilkaha lagu xidho noocyo ayuu leeyahay. Nuuca qofka loogu xidhayo waxaa go'aaminaya dhakhtarka ilkaha, gaar ahaan dhakhtarka farsamadan ku xeel dheer. Noocyada dadka loogu xidho waxaa ka mid ah ceramic. Nuucani wuu qarsoon yahay, aad looma arko. Lingual, kani waxaa lagu xidhaa ilkaha qaybtooda dambe. Bulshada badankooda waxay aaminsan yihiin in xarago ahaan loo xiran karo. Xarago ma loo xiran karaa? Xaqiiqdii waa qalad bulshada laga dhaadhiciyey in ilka xidhista lagu xaragoodo. Sidaa daraaddeed, jawaabtu waa maya. Waxaa jira aalado kaloo la dhaho dental veneers oo ay dadka qaar u adeegsadaan qurux iyo xarago. Aaladani ma ahan bir mise silig lagu xidhayo ilkaha. Waxay u eg tahay ilkaha isla markaana waxaa la dul saaraa ilkaha. Haddii ay dhacdo in qofka loo sameeyey ilka xidhis khaldan, maxaa gudboon? Fadlan la xiriir dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow, gaar ahaan kan farsamada iyo takhasuska orthodontiska leh, sidaad ugu hesho talada kugu habboon. Haddii aad nagu cusub tahayna, nagu soo biir walaalaha kale, gaarsii sidii ayagana ugu faa'iidaystaan. Rabbi ha ku sharfo.